السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبض وضيال ميلكستو تشوكتان waxaad ku soo dhawaataan warka Arabsiya News qodobada aad wararkayga xilligan aad ku daawan doontaan waxa kamid ah madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo sheegay in xukuumaddiisu ay dadaal badan gelisay xoojinta siyaasadda arrimaha dibadda isla markaana xiriidhayo codsiyo u direen badiba dalalka ku yaala qaaradda Afrika madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin oo qiildeeyay duulaanka uu dalkiisa ku qaaday Ukraine isagoo qiil ka dhigtay arrimo la xiriira amniga qaranka dawladda Kenya oo heegan gashay kadib weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen ciidamada Burundi ee ku sugan dalka Soomaaliya daawadayaal kuwaas waa qaar kamid ah qodobada ugu doorkaro warkeena kuwa iyo kuwa kale oo faahfaahsan waxaad ku daawan doontaan warkeena fidsan inta ka horeysa u diyaar garooba qadar adeega bulshada ma ka mid tahay xoolo dhaqatada Soomaalida ee doonaya inay daryeelaan xoolahooda inaad xoolahaaga u hesho calaf nafaqo leh oo qiimihiisu uu jaban yahay wadanka gudihiisana diyaar kuugu ah hore u gaadh warshada Boundary Mills oo soo saarta daqiiqda iyo calafka xoolaha waxaana diyaar ku ah xaddi badan oo calafka xoolaha oo nafaqaysan oo loogu talagalay dadka xoolo dhaqatada Soomaalida haddii aad doonayso calafkaasi nafaqada leh ee qiimihiisu uu jaban yahay hore u gaadh Boundary Mills duleedka galbeed ee magaalada Hargeysa gaar ahaan deegaanka Abaarso madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay dadaal badan gelisay xoojinta siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliland isla markaana guul laga gaadhay Biixi ayaa sheegay in sanadkii hore uu ahaa sanad ay Soomaaliland gaadhay guulo badan oo siyaasadeed isla markaana xukuumaddiisu dadaal badan gelisay sidii dawlado badan oo caalamka ah loo gaarsiin lahaa qadiyadda madaxbannaanida Soomaaliland madaxweynaha ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay muhiimad weyn siinayso wadamada qaaradda Afrika isla markaana in ka badan 40 dal oo Afrika ku yaala ka codsadeen in ay caawiyaan sidii qadiyadda madaxbannaanida loo horgeyn lahaa midowga Afrika dawladdu waxay Afrika badankooda ilaa dhowr iyo 40 dawladood waxaan gaarsiinay oo u diray waraaqo codsi ah oo ah in qadiyadda Soomaaliland ka caawiyaan sidii loo horgeyn lahaa golaha midowga Afrika ee sanadka 2020 sanadkii dhamaaday waxa uu ahaa sanad hoodo u leh siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliland waxaana raacay dadaal badan oo xukuumaddu gelisay iyo in ay qaranka Soomaaliland u soo bandhigto dawlado badan oo adduunka ah taas oo keentay natiijo wax ku ool ah oo lagu naaloon karo hawlaha sanadka hore waxa ugu weynaa socdaalka Mareykanka wafdi ballaaran oo aan hogaaminayo ayaa safar shaqo ugu tagay muddo 12 cisho ah dalka Mareykanka safarkaasi wuxuu lahaa laba ujeedo oo waaweyn in si dhab ah loo fahamsiiyo dowladda Mareykanka taariikhda xanuunka badan ee Soomaaliland kala kulantay midnimadii dhicisowday ee baadidoonka shanta Soomaaliyeed ku salaysnayd iyo xogta sidii bahalnimada ahayd ee dictatorkii Siyaad Barre ugu dalbaday diyaarado taangiyo madaafiic iyo hub culus oo dhan magaalooyinka iyo dadweynaha Soomaaliland laba in si faahfaahsan loogu sharaxo xasuuqii loo geystay ummadda Soomaaliland iyo sababihii keenay halgankii hubaysnaa ee Soomaaliland iyo in markii shacabka Soomaaliland guuleystay go'aan wadareed oo ku gaareen inay dib u soo noqdaan madaxbannaanidoodii 1960 saddex in loo sharaxo in Soomaaliland tahay dawlad dimuqraadi ah oo caalamku indhaha ka lalinayay muddo 3 sano ah balse Soomaaliland ay dhaqaalaheeda yar u hortay amniga dalkeeda ilaalinta xasiloonida gobolka iyo caalamka oo dhan afar in laga wada tashado sidii iskaashi buuxa oo dhex mari lahaa labada dal waa iskaashi bilow ah oo aanu rajaynayno in uu dhaqso u mid dhalo runtii dawladda iyo golayaasha ganacsatada iyo shacbiga Mareykanku
waxa ay noo soo dhoweeyeen si aad iyo aad u qiimo badan. madaxweynuhu waxa kale uu sheegay in ay xoojiyeen xidhiidhka wadamada jaarka ayna abuureen guddiyo wasiiro ah oo ka shaqaynaya horumarinta xidhiidhka jaarka. iskaashiga dhinacyada amniga, ganacsiga iyo isu socodka dadka Somaliland iyo dalka aynu jaarka nahay ee Djibouti, Ethiopia, Kenya waxa la abuuray guddiyo heer wasiir ah oo ka shaqeeya xoojinta iskaashiga nabadgelyada amniga xuduudaha iyo kor u qaadista ganacsiga isaga tallaaba Somaliland iyo jaararkooda. dalalka Djibouti iyo Ethiopia waxa ay hore ugu lahaayeen xafiisyad diblomaasiyadeed dalkeena. waxaan dhawaadinayaa dowladda Kenya oo iyana furatay xafiis diblomaasiyadeed dhowaan iyada oo la furayo isfahamkii labada dowladood ee ay hore ugu kala saxiixdeen magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya. madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa u qiildayay duulaanka uu dalkiisu ku qaaday Ukraine isagoo qiil ka dhigtay arrimo la xidhiidha amniga qaranka. maruu khudbad ka jeedinayay magaalada Moscow ayaa waxa uu sheegay in weerarka uu ahaa tallaabo wanaagsan oo la qaaday. waxa uu sidoo kale sheegay in ciidamada ay u dagaalamayaan qaabka kuwii iyaga ka horreeyay ugu dagaalamayeen dagaalkii labaad ee adduunka, balse ma uusan shaacin wax isbeddel ah oo uu samaynayo. bandhiga maalinta guusha waxaa mararka qaar la xusaa xilliga Sofiyeetka, waxaana dib u soo nooleeyay madaxweyne Boris Yeltsin sanad guuradii kontonaad ee 1995. laakiin Vladimir Putin ayaa 2008 ka dhigay munaasabad sanadle ah oo lagu soo bandhigo agabka ciidanka. laamaha ammaanka ee dalka Kenya ayaa kordhiyay feejignaantooda kadib markii kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada Midowga Afrika ee Burundi ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Dhexe ee dalka Soomaaliya. Kenya ayaa kordhisay ilaalinta xuduudka ay la wadaagto Soomaaliya, taas oo qayb ka ah dadaalada lagu doonayo in lagu wiiqo qorshayaasha ay maleegayaan Al-Shabaab, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan laamaha dalka Kenya. waxaan fahamsanahay inay isku dayi karaan inay weeraraan bartilmaameedyada Kenya kadib dhammaadkii bisha Ramadaan, ayuu yiri sarkaalkani. toddobaadkii hore taliyaha ciidamada difaaca ee Kenya General Robert Kabochi ayaa xarunta Pentagonka kula kulmay gudoomiyaha ciidamada isku dhafka ah ee dalka Mareykanka General Mark Milley. labada hogaamiye ee ciidamada ayaa ka wada hadlay arrimaha labada dal, gaar ahaana sidii loo ballaadhin lahaa iskaashiga la dagaalanka kooxaha argagixisada. madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad ayaa xadii booqday dalka Iiraan oo ah dalka iskugu dhow yihiin dalalka gobolka si uu wada hadal ula soo yeesho hogaamiyaha sare ee Iiraan Ayatollah Ali al-Khamenei. labada hogaamiye ayaa intii wada hadalka lagu jiray ku baaqeen iskaashi adag oo ay yeeshaan Teheraan iyo Dimashq, sida laga soo xigtay warbaahinta dowladda Iiraan. madaxweyne Assad oo booqashadii labaad ku tagay Iiraan ilaa markii dagaalka dalkiisu ka bilowday sanadkii 2011 ayaa sidoo kale la kulmay madaxweynaha Iiraan Ibrahim Raisi, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Iiraan ee IRNA. Assad ayaa awood u helay inuu horjoogsado dagaalkii sokeeye ee dalkiisa ka bilowday markii ay dhaceen dibadbaxyo ay dadka dimuqraadiyad ku doonayeen sanadkii 2011, isaga oo kaalmo ka helay ururada gacan saarka la leh Iiraan iyo faragelin militari oo weyn oo Ruushka kaga timid sanadkii 2015. telefishanka Iiraan ayaa madaxweyne Assad ka soo xigtay isaga oo leh xiriirka istiraatiijiga ah ee Iiraan iyo Suuriya waxa uu horjoogsaday awooddii taliska sahyuuniyadda Israa'iil ee gobolka. warbaahinta Noor News ee Iiraan ayaa iyaduna warisay in Assad uu dib ugu noqday dalkiisa. daawadayaal, qodobkaas ayaa ugu dambeeyay xilitabinteena wareyntan warkan warkaya kulmi doona. waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.